dalxiis bay ku wacan tahay yaa duleed ka baaray damashaad ku mara taclada hargeyla adon dalaneyn ku dakeyniyo dambargeel ku dhaami سيجيه تعليمتي الراسات كداقي ودد وينها كوتومي درباها في شوابي قاي جارة الدوق لهباها أبها دويا إيا داود جلسين لها بسم الله الرحمن الرحيم سنة تجينا شرفت بدن دبتي جافجينا ويلكينا علماء أوضياء أبوينك قبلها دلنيارة السلام عليكم وعربا إنا هرت فرصة دقاني قاتو أنا كم هاد علينا إلهي آدي أدو مهتسنياي إنو نسيو فرصة دقاني مانتا halkan iskugu imaano ku kulano aad iyo aad u mahadsanyahay maada markaan ka baxo waxaan rabaa dadweynaha Sangaylo inaan aad iyo aad idinku mahad celiyo shaqo badan baa leediin abaara iska jiraan mashquulo fara badan baa iska jiraan laakiin markii aan maqasheen inaan soo socono waa noo soo baxdeen dhaways aan caadi ahayn baan soo dhawayseen aad iyo aad baan noo sharafteen ilaahayna sharfo insha Allah bilmillahi kariim markaan taa ka baxo waxaan rabaa maanta waxa weeyaan maalin weyn oo maalmaha ka duwan waay maanta maalinta waxa iska leh Cabdiqaadir Maxamed Xaaj Yuusuf baa iska leh anaka kale waan soo raacnay garab baan u nahay habeenyo maalin baan garab u nahay marka Cabdiqaadir wuxuu u umaaday inuu tolkiisa barto inuu tolkiisa ku mahad celiyo inuu tolkiisa garabkay u noqdeen ay la istaageen ay habeen ka fariisanin inuu u imaado waa mahadsantihiin oo ugu imaaday anakana taas aan soo raacnay oon dhahnay arrin wanaagsan waaye waan soo raacnay marka khayr Allah ku siiyo Cabdiqaadir waan ku duceynaynaa waqti kastaba duca badan baa kula socotaa marka waa inaa ogaataa ducadaas waa duca ma aragtaa in badan umada Soomaaliyeed meesha joogaan ba aabaha ugu duceynayeen ducadii ba haddana kula socotaa waqtigan aan qaadanayo inaan abookeen walaalkeen Allah u naxariista u duceyno ilaahay inuu jannatul firdaws geliyo ilaahay inuu dambigiisa dhaafo ilaahay waxa ugu baryeynaa inuu ku dhaxda baarsho raaxadii ugu sareysay sharafta ugu sareysay ilaahay inuu siiyo ilaahay idinkiis markaan taa ka baxo arrimo badan baa laga hadlay maantana ani arrimahaas kama hadli rabay waayo aniyo idinka maalin dhan baan soo fariisanayno xisaabtamayna waxa la heli ilmo Sangaylo oo baasar ka bixiyo 200 oo kun aan ka bixiye magaciisana waan keeni doonaa markii la isku daro biyaha Sangaylo iyo xuluuqo markii la isku daro sub county-ga xuluuqo dhan markii la isku daro 200 oo milyan aan biyo keenay waana xisaabtami doonaa waan soo imaan doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo maanta xisaabtaas inaan dhex galo ma rabi waayo maalintayda maaha soo ma iglo goladin soo saamaho jidka ay maaday waa aragna jidka waan soo marnay laakiin waxaan rabaa inaan fursadan qaato anoo ku mahad celinayo dawladda Kenya iyo madaxweynaha Uhuru Kenyatta jidkan contractkiis waa la bixiyay Chinese baa la siiyay ila ijaara ila ma xuluuqo baa la dhisaya contractka la bixi la saingare waa laga soo bilaaway dekada laga soo bilaaway way soo socotaa 27 kilomitir waa la soo dhameeyay hadda way soo socotaa wayna in soo mari gudaheeda hadduu Ilaahay yiraahdo sidii la sheegay oo loo sheegay contractaga sanad gudihiisa in lagu dhameeyo shaqadaas oo dhan baa la rabaa marka jidka waa la hagaajini waa ina ka warqabtaan oo ku bishaaraysataan arinta ID card baan ka hadli arinta ID card ninka ID card ku shaqul leh
xafiiskayga CDF aan lacag siinaysaa ay ku imaadaan ay kibaandada ku gooyaan halkan wayna ku imaanayaan wayna imaadeen maalintood xuluqo bay ka gooyeen haddana halkan way imaanayaan way ka gooynayaan hadduu ilaa yiraahdo tii waxaa imaatay security inay ammaan leedahay ana habeen iyo maalin dhex socdaa dadka waana u sheegaa baarlamaankan ka dhex sheegay meelaan ka sheegin malaha securityga wadankan ijaara la dhaho aad iyo aad buu u fiican yahay dadkeenana al-shabaab ma aha dadkeena waa dad wanaagsan daacad ah oo dawlad ah dadka xornimada u soo dagaalameen ma maanta al-shabaab noqonayaan dadkii Kenyatta lala xiray ma maanta al-shabaab noqonayaan dadkii kaliya ku haray wadankan markii dadka kale oo dhan ka baxeen ma maanta al-shabaab noqonayaan marka dad dawlad ah baan nahay haddaan nahay dadka reer ijaara dad dawlada baan nahay wixii nagu dhaco waan wada hadalnaa senataga deputy governor dawladda waan u tagnay waan la fariisanay intii ka dambeysay intaan la fariisanay wali wax dhacay ma laha booqasho markay noqotana waa inay soo booqanay ilaaha laga cabsoodo ma inay soo booqanayna mise waa inay soo booqanay waa inay soo booqanay runta in la iska sheegaa jirta wixii la gafay waa ogolnahay waa la gafay laakiin wixii runta inaan ka sheegno baa ku jirta waxaa kale shaqada hygiene wiilka sheegay oo yiraahday gacanta duqay baa loo geliyay horta shaqada World Bank baa iska leh iyo county government ani safi abdi waxba shuqul kuma leey inay dhalinyarada ogaadaan baan rabaa shuqul kuma leey shaqadaasayto waxa iska leh World Bank iyo county government ma qashaan county government waa ogtiin dhibaato fara badan baa iska jirtay laakiin maanta waxa ilaahay mahadiisa deputy governor nala fadhiya oo wax kasta diyaar u ah inuu cid u qabto marka deputy governorgeena waan soo dhawaynaynaa gacmo furan baan ku soo dhawaynaynaa shaqadii dhinnaad oo intii hore ka dhinnaatay haddaan daba qabashadeeda samaynaynaa aniga saa ogsoontiin MCA Cadow maanta wuxuu yiraahdaa governor aan qaadano ani mar hore sheegay waxaan dhahay north way qaadatay Soomaaliin centralna way qaadatay south baa dhiman Soomaa south diyaar aan wahano governornimada diyaar aan wahano ma maqashaan tira nalama dheera ma maqashaan qof tirana dheer maraha diyaar baa u nahay waan qaadanaynaa maantana kama hadlayno hadda Cadow baa arintu sheegay baa u dhiibay marka waxaan ku soo dhawaynayaa hadda aniga ininka reer Sangailu waa xisaabtami doonaa diyaar baan u wahaynaa ila xisaabtamtaan waayo ininka meel geysateen soo saamaho ininka meel geysateen xaq baa u leediin inay ila xisaabtamtaan ana ininku soo noqonaya maanta waa maalin uu leeyahay Cabdiqaadir Maxamed Xaaji Yuusuf uu leeyahay marka inaan ku sharafno inaan ku dhoorno inaan ku hagaajino inuu wuxuu naga mudan yahay wiilkeena inaan siino Soomaha aniga ininka xisaabteena diyaar baan inahay buugayga soo qaadani ininka buugiina soo qaata diyaar miya saama isko golnay waa mahadsantiin aad baa u mahadsantiin marka waxaan qaadanayaa nafaaskan inaan soo dhaweeyo wiilka aan hooyada u ahay oo deputy governor Gaarisa ka oo maaragta wiilkayga ah oo maaragta aan ku soo dhaweynayo shirkan maanta uu Cabdiqaadir uu leeyahay aan ku soo dhaweynaya waxaan constituency-kan ku soo dhaweynaya waxaan ku soo dhaweynaya Sangailu baan ku soo dhaweynaya wiilkaygana waxaan inii sheegay horta hadda waa laga sheegtay ani asagoo isla socono 2 jeer baan Sangailu imaanay isla imaanay marka asagana marmar kale ugu imaaday marka soo dhaweeya wiilka salaan aad iyo aad maaragtay معانا idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bwana senator Mr. Abdul Haji Mheshimiwa Sofia odayaasha kala meesha fadhaan shaqaalaha kala duwan kuwa nationalka kuwa countyga maamooyinka waa fiicantiin Soomaha midda ugu hore maanta waxaan u imaanay xafladii Abdul Haji حفلة أنا قلنا نوم معها عبد البانكيني أنا وإسبرتين ما عرفت أنا يدي مهد عليو
mahadcelintaas anag naftayn waa idin mahadcelinaynaa sida qiimaha leh sidoo masiicin roo u sheegay haddaanan annaka garab istaagin loo daaynin meesha oo samawada garab istaagin Abdul ma noqteen no post dadaal fara badan baad geliseen annaki innika shacabkii dadkii oo dhan oo is wato ayaa sidii ku meel martay Abdul arintiis marka waad ku mahadsantiin midda ugu weyn ugu leeyahay maanta waa mahadcelintaas in la dhaw mahadsantiin midda labaad hadalla meesha laga dhawaajiyay samawada mid noqono walaalaan noqono aan maaragtay midowno aan isku duubnaan taas waa wixii la rabo laakiin af yay noqonin af laga sheego wax uu fududiya aan ka dhaweyno mid aan ahaano maaragtay aan isku duubnaano aan wada shaqeyno waatan la rabo aanan ka dhaweyno insha Allah ta'ala ani ahaan hadaan iska hadlo hor baan kaga jira taas waanan maaragtay arrin loo baahan yahay midda saddexaad waxoogaa qalaaf baa jiray countiga anigiyo governorga waan isku dhacnay qalaaf baa jiray qalaafkana ma aha qalaaf oo gacan qaad ama waxaas ma ahee shaqadii ma uu maaragtay waxoogaa qalaaf ka imaaday wartalada sidan ay ku fiicantahay iyo sidan ay ku fiicantahay ma yahay tiina hadda kulli waad ka waraasiin shalay waanu soo imaanay waan is cafinay nawadaan qaadanay sababta nabadu qaadanayna maxaa way dawladda way dhisan tahay inaan ka faa'iideysano aan maaragtay shacabka u baahan in looga faa'iideeyo hatta iga inta fadhi waxaan la hadlay chief of Sagi Health Hassan Ashur waa garanaysiin soo ma horta culaysiya iska jiraan wadanka ma aha wax aan kale haasto gaaris kale haasto ma aha culaysiya jiraan national government lacagihii si loo reebay muuso si dayneen countiga isbitaalada wadanka oo dhan daawo la'aan ku dhacday marka hadda aan isla hadalno Hassan wuxuu xaqiijiyay hal usbuuc hadda ka dambe isbitaalka inay daawo imaanay horta because lacagihii oo deynta lagu qolooyinka daawada keenana ay lahaayeen waa la bixiyay marka insha Allah ta'ala hadda wixii ka dambe waxaad arki doontiin shaqa anigana waxaan ugu boorinay maadaama aniga aan nabadda qaatay maadaama aan nabadda aan qaatay ininkan nabadda qaadatiin taasaan u keenay odayaasha shalay gaaris si fiican ay u qaateen shaahidayna ka ahayn nabadda qaata dawladda dhisan had iyo jeerba hala garab istaago nabadda qaata dawladda had iyo jeerba hala garab istaago si looga faa'iideysto midda kale governaha oo idiin soo salaamay waxaan qalqaalinaynaa trip degdegeen aan imaano waxyaalo fara badan oo laga qabtay waa jiraan Sagaayil oo project yaale waxay dhiman in la dhameystiro lusku imaado aan qalqaalinaynaa marka wabillahi tawfiiq ad maanta xafladan Abdullah iska leh wax badan kama sii hadlayno Sagaayil waan imaaday census-ki waxaan ka qabanay waa loogiyo Soomaha shaqo badan aan ka qabanay census-ki waagi census-ki inta waan imaaday waaki aan wada hadalnay marka insha Allah ta'ala wa ma tantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum bismillahir rahmanir rahim watu wa Sangailu leo nina furaha sana kufika hapa Sangailu nafikiri mara yangu ya kwanza kuja Sangailu ilikuwa mwaka wa 2002 nilikuja na mzee marehemu baada hiyo nilikuja mara mingi Sangailu lakini pia mara ya mwisho mimi kufika Sangailu ilikuwa pia na mzee marehemu anakumbuka vizuri sana na leo tukija
mumenikumbusha sana juu ya mzee marehemu. Yangu kuja leo hapa kwanza ilikuwa kuwashukuru nyinyi watu wa Sangailu vile mulisimama na sisi wakati ya taasia, na mkasimama na sisi pia wakati tulisema tunataka kuwania kiti ya senator. Tunasema asanteni sana. Jambo lingine ambaye imetuleta hapa, tulikuwa tunakuja na viongozi wote wa Kisamawadhal kuwaonesha nyinyi kama watu wetu kuwa sisi kama viongozi tuko pamoja. Vile MCA amesema Ado, ilikuwa leo speaker na MCAs wote Samawadhal walikuwa wafike hapa leo na sisi, lakini kwa ajili ya kazi wametoa pole zao. Mzee Ado hapa pia ameongea mambo ya siasa, lakini tulikuwa tumekubaliana leo hatukuji kuongea siasa. Lakini kama wakazi wa Sangailu, kama kweli munataka Samawadhal waendee viti vingine vya county, lazima nyinyi kama watu wa Sangailu muoneshe umoja, ndo sisi viongozi pia tuna umoja. Umoja ni muhimu sana. Hayo ndo mambo ambayo ilituleta leo, lakini pia tumepata nafasi ya kusikia shida zenyu, na nadhani Mama Safia MP amejaribu kujibu, lakini tunataka tuwahakikishie kama Samawadhal, kama sisi viongozi tuko hapa, hatuwezi kubali mudhulumiwe kivovote. Haiwezekani. Kama iko shida na watu ya security hapa, tutaongea na watu ya security. Nasikia mwisho kuandikishwa watu ID ilikuwa mwaka ya 2017. Hivyo ndo nimeelezwa na chief. Na hiyo kama wakazi wa Kenya si haki. Nafikiri Mama Safia amesema atafuatilia hiyo mambo ya ID, na pia nitafuatilia mwenyewe binafsi tuhakikishe hiyo shida ya ID Sangailu hakuna tena. Hiyo mambo ingine ya security pia tutafuatilia. Kama kweli watu wanadhulumiwa bila sababu, tutahakikisha isimamishwe haraka iwezekanavyo. Hatuwezi kubali watu wetu wadhulumiwe. Hayo mambo mengine Mama Safia ametaja, amewaeleza juu ya barabara. Tumeahidiwa barabara ile ya Lapset kutoka Lamu, inshallah itapita hapa pia, itatatua hiyo shida. DG naye amewaeleza juu ya mambo ya hospitali, tutamshikilia yeye. Jana tulikuwa Garissa kuwapatanisha yeye na governor, na sasa tunatarajia hata yeye na governor wataweza kuleta maendeleo kwa jamii zetu zote. Kwa hayo machache, kwa ajili ya wakati, nataka tena kuwashukuru sana watu wa Sangailu, na washukuru sana. Tumepokea dua zenyu, tumepokea salamu zenyu, na tumefurahi sana leo kuwa hapa, na tunawaombea kila la kheri, na Mwenyezi Mungu awabariki nyote. Asanteni sana.